shaybaadhka qaranka yiigsi iyo himilo muddo dheer soo taxnay dadaal iyo horumar loo baahnaa marar badan baa jirtay in dawooyin dhacay ama cunto dhacday ay soo galeen dadka qaar wax ku noqdeen laakiin inta badan ilaahay naga badbaadiyay maynaan haysan awood u maynaan lahayn aan wax iskaga eegno imikaase way inoo bilaabantay laabkiina waa la dhisay tusaale ahaan haddaan soo qaado laabkan oo kale waxaa dalalka hadda inaga horeeya aynu magaranaysaa inaga horeeyay inaga hor dhistay waxaa ka mid ah tusaale ahaan Mareykanka oo kale shirkadda tan la mid ah ay haystaan waxa la yiraahdaa FDA baa la yiraahdaa kulli waxay eegaan dawooyinka cuntooyinka waa in badbaadada dadka la eegaa dadku waxay cunayaan ama wax wadanka ka soo baxaa noqdo ama wax dibadda ka yimaada mid ka mid ah hababka loo tijaabiyo kiniinku haddii uu dhaafo marka muddo la wareejiyo 100 jeer oo kale marka la wareejiyo inka vitamin C gan sida ku qoran buugan 100 jeer marka la wareejiyo haddii mid ka mid jabo 20 xabo ka mid ah kiniinka ku jira waxay sheegaysaa in kiniinkaasi tayo ahaan waafaqin ilaalinta tayada marka kiniinka la qaaday kiniinka waxyaabo badan baa lagu soo raaciyaa oo ama qaybta adkeynta haday noqoto marka qaybta active ingredient marka mashiinkan uu dhaafay oo aqoonsado inuu kiniinka yahay amountigeedii ama xaddigeedii iyo inta laagtay waxa loo gudbiyaa mashiin kale oo loo yaqaano HPLC baasada markaynu gelino wuxuu inoo sheegaa baasada inta qoyaan ku jirta iyo inta ku jirta damba soo kale iyo inta ku jirta waxyaabo nafaqooyinka lahaa ee lagu talagalay sida borotiinkii iyo fitamiinadii ilaalinta tayada cuntada iyo daawooyinka ay isticmaalaan shacabka Soomaaliland waa hirgelinta shaybaadhka qaranka ee cuntada iyo daawooyinka haddaba la soco dhowaan barnaamijkan oo ku saabsan shaybaadhka qaranka Soomaaliland kaasi oo aanu diiradda ku saari doonno waxtarkiisa iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray hirgelinta shaybaadhka qaranku